بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله تعالى maantay oo maalin Ramadaan annaga oo ku guda jirno tobanka ugu horeysay bisha Ramadaan waxaan rabnaa insha Allah taala inaan ka hadalno masaa'il aad u fara badan oo ayna soo weydiiyeen dadka ahbaabta ee ku xiran beejka ama walaalaha daarul mahabba liinqaad al-umma ayadoo isla markaas muxaadarooyin taxana ay noo socdeen waayahanba baan maanta insha Allah taala barnaamijka waxa inoo martay sheekheena caalimka Sharif Abdullahi Sharif Hassan isla markaana imaamka masjidus saxaaba baan waxaan rabnaa insha Allah taala su'aalaha ina soo weydiiyeen ahibada inaan su'aalahaasi nooga jawaabo insha Allah su'aalahaasi maanta waxaan rajeynayaa ahbaabta inay kaga aad iyo aad uga faa'iideysan doonaan sheekheena caalimka Sharif Abdullahi Sharif Hassan haatan insha Allah taala waxaan mikrofoonka ku wareejinayaa oo aan u guda galaynaa sidii uu su'aalaha uga jawaabi lahaa sheekheena insha Allah waxaan leeyahay sheekh haddii aan u guda galno su'aasha ugu horeysa waxay u dhigan tahay sida tan qof baa lagu leeyahay soon aad u tiro badan soonkaas oo sanadkii la soo dhaafay soonkii lagu lahaa ma qiyaasi karo inta qayb uu yahay ma qiyaasi karo seen loo qaleynayaa soonkaas seena wax loo dhiibi karaa ama loo bixin karaa maxaase laga yeelayaa ramadaankaas ama soonkaas tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أولا وحن كعذر دارنا يا أنوغ مئه عالمنا مئه علامنا مئه كسيدر ما شاء الله ضالبانا هاي مسائشنا ragga ahaa ee wax yaqiinay baa inta badan ka cudur daaran jiray as'ilada inaguna waa ka sii xaq jirnaa insha Allah su'aalaha wixii aynu garanano waa ka jawaabi doonaa wixii marka ayna waafaqina insha Allah taala iyaduna waa dib aan ugu noqon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa weeye su'aasha qofka hadii soon uu ka tago soonkaana cadadkiisa uusan garanaynin saan u fahmay ama hal bil baa ka tagtay bishii inta ayaanay ka tagtay buusan garanaynin ama sanado badan oo soomyo badan buu soo maray oo uusan garanaynin inta cadadkooda uu ahaa inta way dhici kartaa qofka horta waxaa la eegayaa soonka horta qadaha waa lagu leeyahay ilaa wilaa سواء كان بعذر هدو عذر دار أو تجي يهدي بغير عذر أو كتجي أو نين إسكاب عشالي أو أها قضاه الأولى لازم مركا هدي صونك كتجي قفك وصونك لكسو وريغو يسوى أنا كي هوري أنا قضينين حكم أياك إيمانية هدوسن كسو وريغو صونك لأو soonkii hadda ahaan baa ka tagay laakiin maalmihii buu garan la yahay soonkii kalena wali ma soo gelin iyaduna waa xukunkeeda ay leedahay qofka marka hadii hal soon uu ka tagay laakiin soonkii maalmihii uusan garanaynin soon kale uusan ka soo wareegin waxa weeye hadda soonka uu ijtihaadaya qofkan hadduu og yahay bishoo dhan inay ka wada tagtay bishoo dhan buu qadaynaya
haddii bisha ayaama ka mid ay ka tageenoo bacd alayaam min ashahr ay ka tageenna inta ugu badan oo uu ku qiyaasi karo ayuu ku qiyaasayaa ijtihaadkana gebigiisa waxaa laga soo qaadaa sida xaqiiqada ugu dhow haddii uu ka shakisan yahay cadad iyo cadad uu isleeyahay ma waxaa kaa tagtay 10 mise 15 oo shakiga meel uu ku xadaysan yahay meesha badan buu ka soo qabanaya hadduusan garanaynin bishan wixii ka tagay laakiin wax ka soo mu og yahay kulli qofka maskaxiisa waa si uu yiri joogtaayo majnuun ma aha bisha hadduusan wada soominba gebigeedaba uusan wada soomin uu garanaya haddii kale wax uu ka soomay wixiina uusan garanaynin inta ugu yar ayuu ka soo qaaday talow intaad ka soontay ma maalin bay ahayd ma laba ay ahayd ma saddex bay ahayd oo inta kale muusan soominba ma maalin bay ahayd ma laba ay ahayd ma saddex maalin uu ka sooma laga soo qaadaya inta kalena uu qadaynaya biluhuna waa la midkii يعني نين كان سنوات بدن بوسن سومين بقى سنوات بدن بوسن سومين هدي صون كبدن كتجي سنوات كبدن يكن معلمها كتجي بهرت اللي عذر إنه أوجت تجي قفكه عذر دار أوجت تجي آثم معها كتجي دي صون كوكتة يكون دبابيو لكن بغير عذر هدو كتجي صونك أو صون عذر دار له بوصون كي قفكه كتجي وآثم يود دبابيه توا حاجة دبيجة دم بالعان توي مركب نكن هذه السنة بدن أيوسن سومين بعذر أو بغير عذر هاي دون تاعته يعني دم بو أوقات تجي أو حنون جري يجيب جري بو أوقات تجي أما بغير عذر بو كتجي متكون دونا بها هذا هذه السنوات بدن وقف كان صون كيسي صون كودي وقت تجي سيدي وكلوي واجتهاد يا ما الله بايهد ما صدح بايهد ما أفر بايهد انت كتكت افر بايهد بعد لقى سوق هذه نعم وحونا الراعين يا مركا سونك كتجي سونك لا كو يمد سوق انا سونك اسغا هسومين سوميد لانتا سونك marka hore ama cudur ha uga tago cudur daar lama eegayo taas يعني soonka wuxuu uga tagay bilaa cudri buu ka tagay isagoo caafimaadsan oo ciladna qabin buu soonkii ka tagay ama isagoo macduur oo cudur daar leh buu soonkii ka tagay ku doonaba ha ahaado waxa la eegayaa taam aathimna wuu noqonayaa hadii uu cudur daaraan ka tagay haduu cudur uga tagayna aathim ma aha laakiin qadaha marka loo soo kaco ila bisha kale ramadaanka kale uu ka yimaado oo uusan soomin hadii sababka uu soomi waayay wuxuu soomi waayay cudur daar jiray haduu yahay fidal uu yeelan maayo fidyada ka hadlayna hadii soonkii baa ka tagay qofka soonkii kala ku soo galay wuuna muusan soomin kii kala ku soo galay laakiin sabab jiray dartiisu la soomi waayay oo cudur daar buu lahaa qofkan fidal uu yeelan maayo soonka hore ama cudur daar ha uga tago ama cudur daar la'aan ha ka tago hadii qadaynta uu qadayni waayay cudur daar la'aan cudur daar jiray uu yahay uu bajirana مسافر دائما أيها أدو عذر دار بولها صومها فيديو لقى مرة قضاء بالغ دورية هذه لكن بغير عذر وصوكي كلا كوسو قالوا عذر دار العاب وصوكي كلا كوسو قالي قضيهنا ولا دورية فيديونا ولا دورية فيديونا وحوي ومد كنا معاصرين توحيكو قدران لح بقول أو جرام بمعنى ونسكيلة بقول جرام لقو دريويا أيوب بحنايا هدي مركا صون باكتاجي صون رمضان بدن بصوق عليه مركز تأو رمضان كله وإيمان أيوه وحتعدد إياه في ديده ويتعدد إيسا صون كي هوري هدي سدح مال اللي لها أما بشور نبى اللي لها قضاها دين ولا قدون إياه أنت مالين كتكتي أو مدن ولا قدون إياه صون كلا عذر دار الآن وها صون كلا صوق علي وإلا والله ميسا كوك كلا صوق علي وإلا والله ميسا كوك كلا صوق علي وإلا والله ميسا برك على كل أسكوز ضدوب قف كصون كتجه هدو جرا ويوكو اجتهادي أنت أو قياسيو أنت أجوب بدن بالغ سوق قضية في دينا ويراعي سهدي رمضان كلا أسوق جلان يسوى أن عذر دار لهينا وقضيني وايي wax cudur daarna ma laha uu qadayni waay ramadaan kala u soo galeen fidya raacaysa laakiin hadii ramadaanada soo galay
qaday la'aanta ay ugu wacan tahay cudurdaar jiray fidye fuuli mayso wallahu aclam ما شاء الله جزاكم الله خير شيخنا aad baad u mahadsantahay insha allah waxaan u maleynayaa masaladaasi inaan aad iyo aad aan u fahanay sa'ilkan kale sheekhana wuxuu leeyahay waxaan weydiinayaa maadaama lagu guda jiro bishii barakeysneed ee ramadaan masaajidadina ay xiran yihiin sababtu ay u xiran yihiinna ay tahay caabuqa iyo balaayada wareegaysa cudurka jira dartood masaajidadii loo xiray qofku keligiis ma tukani karaa gurigiisa ma ku tukani karaa taraawiixda haddii uu tukani karo meequu tukanayaa taraawiixda markuu hadduu tukado meequu tukani karaa haddii uu tukado oo haddana uu rabo inuu taajud tukado imisuu ka tukanayaa taajudka sideese laysku waafajin karaa wallahu aclam waxaad moodaa dhowr su-aal inay isu xambaarsan yihiin yacni qofka gurigii ma ku tukani karaa taraawiixda waxaa weeye imisuu tukanayaa tahajudkii maxaa tire haddii taraawiixda uu tukado taajud ma ku dari karaa oo hadduu ku darayana meequu tukanayaa waxaa weeye horta haddii hadda asminada hadda jirto oo kaleeto weeyaan qofka masaajidda in lagu tukado salaada faradka ah masaajidda waxa loo dhisay loo bineeyey loo dhisay waa in lagu tukado weeyaan salaada faradkeena ayaa owlo ku ah in jamaacada lagu tukado haddii marka salaadii faradka ahayd ee jamaacadu ama ay waajib ahayd ama ay sunno mu'akad ahayd qofka cudurdaar dartii loo fasaxay inuu gurigiisa kaga tukado masaajiddii dabcan salaadii sunnada ahayd xataa haddii ay sida taraawiix oo kale jamaaca loo jideeyeyna hataa inuu gurigiisa ku tukado ayadaa owle ku sii ah marka calaa kulli xaal sida qofka hadduu macduur yahay oo acdaaru ljamaaca uu qabo acdaaru tarki ljamaaca jamaacada qofka inuu xaadiro acdaartii ka tegiddeeda u fasaxaysay haddii qofka uu leeyahay oo jamaacadii masjidka uu tegi waayo salaadihii faradkaa la jamaacadayey tii sunnada ahaydee jamaacada loo jideeyey sida taraawiixda oo kaleetana kadaalika inuusan masjidka tegin ee gurigiisa uu ku tukado waa u bannaan tahay nacam taraawiixda imisuu tukanayaa taraawiixda taasi waa mas'ala in badanna culimmadu ay ka hadashay taraawiixdu waxa ay ummaddu ku ijmaacday oo mujmacun calayhi ah in ay tahay 20 ragcadood saddexna lagu watarayo asalba taraawiixda taraawiix waa jamac mufradkeedana waa tarwiixatin ka tasliimatin oo kaleeto weeye taraawiix baa lagu jamcinayaa ibnu manduur wuxuu yidhaahdaa taraawiix waa salaada ay tukanayaan muslimiinta bisha ramadaan waxaana taraawiix loogu bixiyey dadka tukanayo tarwiixa macnaheeda waxa weeye waa raaxaysi dadka tukanayo ayaa fariisanaya oo raaxaysanaya bacda kulli 4 rakacaatin 4 ragcaad kadib kastaba way fariisanayaan si ay u yarnastaan lafdiga taraawiixa marka waa jamac jamac inta ugu yarna waa 3 oo tarwiixa iyo tarwiixa iyo tarwiixa 3 jeer oo la fariistay oo la nastay iyo taraawiix lagu jamcini karaa marka kelimada haddaan hadda lugawiyan u eegno lagu magacaabay taraawiix lagu magacaabay ayaanan lagu magacaabi karin wax ka yar 12 taraawiix ugu yaraan waxa taraawiix lagu magacaabi karo waa 12 waa in 4 la tukado oo la nasto haddana 4 kale la tukado oo la nasto haddana 4 kale la tukado oo la nasto watarkii kuma jira hadda saddexdaa oo min 4 markii la tukado yaa waxa ugu yaree taraawiix lagu magacaabi karo taraawiix la oranaya marka haddaanan meel kale u kicin magac kale aynu eegno yaa salaatu taraawiix waxa ugu yar uu noqonaya in 12 la gaarsiiyo fuqahadu marka waxay yiraahdeen taraawiixdu waa salaada ramadaanka la tukado 5 tarwiix ayna leedahay
oo bacda kulli 4 rakcaatin ba la tarwiixsanayo la fariisanayo la nasanayo 10 tasliimoodna way leedahay oo min laba ragcadood loo tukanayo saasay marka 20 ku noqonaysa marka cadadkeedu 20 weeye 20 inay tahayna waa waxay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku ijmaaceen fi zaman sayyidina Umar waxa la yiraahdaa taraawiixdu asluha sunnatu nabawiyya asalkeedu waa sunna nabawi oo nabiga ayaa jideeyay wa umariyatun fi kayfiyatiha kayfiyada loo tukanayona sayyidina Umar ayaa nidaamka u jideeyay waxayna ahayd sida uu warinayo Abdurrahman bin Qari wuxuu leeyahay waxaan baxay buu yiri waxaan galnay buu yiri masjidka anigoo la socdo Umar bin Khattab radiyallahu anhu arda dadkii baanu helnay iyagoo qaybsan oo jamaacad ah mid keligii tukanayo iyo mid ay laba ku xiran tahay iyo mid hakada markuu eegay xaalkoodii buu sayyidina Umar wuxuu yiri waxaan ra'yaynayaa buu yiri haddaan dadkan isugu geyno qaari waaxid hal imaam aan isugu geyno inay fiicnaan lahayd sidii buu marka Ubay ibn Ka'ab amray inuu dadkii tukiyo dadkii baa isku ururay halkii bay ka bilaabeen waxayna tukadeen 20 ragcadood bay tukadeen kadib habeenkii dambe buu xiri Abdurrahman ibn Qari baan hadan sidoo kale soo galnay masjidka dadkii jamaacadii oogayo oo Ubay ibn Ka'ab uu tukinayo salaadii taraawiixda markaas sayyidina Umar ibn Khattab wuxuu yiri ni'matul bid'atu hadihi bimaana ururinta uu ku ururiyay jamaacada isaga ayaa sida u jideeyay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallamna waqtiyadii ugu badnaayeen bay kamid tahayo way buuxaan مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا أوصاء أمرين وبصحابتي انتو ضبطا أحد إنكرين ملها أحد ديدين ملها صادرت هذا مركة وحينو أصبحت إجماعا فعليا وقوليا وحلو إجماع بين قوتين عند الصحابة إن أي لباطن تهي لباطن كي بيساء التكدين صدحنا ويكو وطرين وحا دليل إن يساء التكدين وأي لباطن تراويح يسدح وطر التكدين وحا دليل أحاديث بدن أو صو أرورتي وكميد يهي سائب بن يزيد حديث كيسي ولي يهي وحي أهايين كوي أقم صلاة التراويح بشهر رمضان ب20 ركعة كذلك يزيد بن رومان اسنا كذلك وحولي يهي في زمن في عهد عمر ددكو وحي تكري جرين 20 ركعات أو تراويح 20 ركعات يصدح وتر بي تكري جرين مر هذا يسحبوا صاو إجماعين رسولك صلى الله عليه وسلم وحويه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجد وحويه من سنن النبي بكمتهاي وحي أي صحابة إنه جدي خاصة خلفاء الراشدين وكمدهاي عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مذاهب الأربعة ساسي كواتين اسكو وافقين إلا وحلقة صور نقيلي أو غير مشهور من المالكية إمام مالك في زمنه إن أي مدينة كنت كري جيرين لح يصدق ركعات مدة أنا إجماعي بوريني ميسو الصحابة وحيكون إجماعين وحكدا بيبوها وقول كسونا هذا في المذهب المالكي مر هذا الصحابة صاروا إجماعين تراويح ذو وحوي لباتن كان ركعات وهي صحابة الرسول كانوا إجماعي فقهاء واسكن راعين إلا قولك غير مشهور كأن مشهور كأن لقصة وري مذهب مالكي دمو يعني مركا وحاجر حديث أي سيدتنا عائشة لقوريي والنبي صلى الله عليه وآله هاي نبي موسى أهاني رمضان غير كيسكيت كده أكثر من 11 كي كزيادة موسى أهين كو يتفرق على موسى كزيادة يجري النبي صلى الله عليه وسلم رمضان غير كيسة من نبي موسى كزيادة يجري حديثك هدي اللي يراهدو هلا قبصادو oo sunnada nabiga waxa weeye waa 8 rakacadood hadii la yiraahdo qowlkii sayidina Umar ama ficilkii sayidina Umar iyo saxaabada aha in ay 20 tukadeed ay tukadeen dhinacan u tuurna hadii la yiraahdo kadalika waa in jamaacadana la tuura maxaa yeelay in jamaaca lagu tukado sayidina Umar baa jideeyay
inay 20 tahayna sayidina cumar baa yaa jideeyey iyo saxaabadii baa isku waafaqay maxaa yeelay nabiga labadii habeenay saxaabada u soo baxeen kadib uu ka go'ay gurigiisu ku haray haddii ay jamaacadu nabiga sallallahu alayhi isagoo ka baqayay in lagu farad yeelo halkaas ay jamaacadiisii ku dhamaatay waxa sunnada soo nooleeyay ee dib u soo celiyay ee jamaacada jideeyay bidcana ku magacaabayo bidca xasana waa sayidina cumar haddii marka la yiraahdo 20ka imaamka uu jideeyay sayidina cumar uu jideeyay inuu ka tagno waa in jamaacada isaga jideeyay jamaacadina laga daayo jamaacada lagu tukano guryaha in lagu tukado ay noqonaysa waa mid labaad سيدنا عائشة رضي الله عنها وحي ليدهي ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره وحي مركز يدودو كور رميسو ووح رمضان إيه غير كيس اللبضة بلا تكريو وحي مركز رمضان إيه غير كيس لا تكريو وتهجد كي عام كأها نبي قو تكري جري وتر كيسي ويان وتر بيكا مركز فقهادو كو حنبارين وحي رمضان إيه غير بلا تكري ووتر كأو نبي قانا وحي أي ليدهي موسى كبدين يجرين وقيام الليل كيسي ووتر كأنا أها وكو يتمنك تكني جلوي رمضان يغير كيس لكا ولا تكنية تنكر يا صدحات سيدتنا عائشة رضي الله عنها وحي كور رميسو وانت اي نبي كلا كل مجرتي وما اين اوغا شبضنين زوجاتك كلا يا سيدنا عمر نفتيسه محايله حبيبك هوينك سو سغال باي هايين habeen buu kala kulmi jiray waxa laga yaabaa bishaan inuu 3 habeen nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sidii Aisha la kulmo ama 4 habeen ka soo qaado la kulmo intii layaalidii kale idilba wuxuu ku sugnaanayay haweenkiisii kale agtooda marka waxay ka waramaysaa waa inta iidu ogtahay weeyaan intay ogtahay weey marka saa darteed warkii oo kooban taraawiixdu waxa lagu magacaabaa 20 ka wixii gaaro wixii inta ka yaray 8 rakacadood haday martahay taraawiix ma aha maxaa yeelay magacaba ma xambaari karto horta lagu magacaabo maayo taraawiix maxaa yeelay taraawiix lagu magacaabaya wixii 3 tarwiixa iyo ka badan ay isugu timaado yaa lagu magacaabaya 8 hadii la tukanayna hal mar baa la fariisanaya bas ama laba jeer baa la fariisanaya tarwiixana lama dhihin tarwiixatayna lama dhihin lidalika magaca taraawiix leeyna wax lagu magacaabi karo وصلاة المسلمين تكدان صحابة أي جديين أو أي ولي بكو إجماعين لباتن كأه صدحنا لو تريو تراويح درتاوي وحي أنت كير تراويح من قنيو سنة وكوية هاي وصلاة كسو إلهي درت أوتو كتي أجر كذا والله ضحي لكن صلاة دي السنة ده هاي قيام الليل كهاد قيام رمضان هاد التراويح ده لو مجعابي كوما حسيريسو إلى أتكتو كتو لباتن كرقعدود صحابة اسكو وافقين مذاهب ترى اسكو وافقين اسلام كان شيء مجمع عليه الا قول كاسمو يعني ارن كان ان سيدنا تكنيو ما اين صبح الا في الازمان الاخيره زمن دي قدام بيسي باي صبحين ويهدم باي صبحين هداي ugu badot ibn taymiya fataawidiisa uu ku soo qaaday sideeda uu ku sheegaya saaso kaleeto isagoo xadiidkii sayyidatina Aisha radhiyallahu anha ma'a dhalika isaga wuxuu ku magacaabay labaduba inay sunna yihiin sida hada qoladan bidca ka dhigtay in 20 la tukado منكر كدغتي غير صحيح كدغتي موسى نهين لكن مع ذلك اسغ نفتيسا اجماع الصحابه كهريي صدرتيد waxaan leenahay sideed in la tukado waa wax zamanadii dambe uu yimid wax jiri jiray ma aha wallahu a'lam